soo dhawaada daawadayaal duur wanaagsan qodobada xiisaha leh aad maanta duurnimadan aad halkan ku daawan doontaan kuwooda ugu waaweyn waxaa kamid ah meedadka 16 askari oo ka tirsan beelaha Gudubursi iyo Samaroon isku dhinaca ayaa lagu aasay gudaha magaalada Boorame xilli ay dadka iyo waliba sidoo kale ay ka soo qayb galeen aaskaasi ay la ilmeynayeen xanuunka iyo guuldarada qaraar ee la dhansiiyay beelaha Gudubursi haddaba dagaalkii sheedeer ka dhacay maxaa soo kordhay oo halkaasi hadda maxaa ka soconaya xilli ay markaasi dhaqdhaqaaqyo xoogan halkaasi laga dareemayo qodobada kale xiisaha leh duurnimadan halkan ku daawan doontaan kuwooda ugu waaweyn waxaa kamid ah diyaaradaha dagaalka ee dawladda Djibouti ayaa lagu arkayay xadka Awdal iyo Selil xilli halka beelaha Gudubursi iyo waliba sidoo kale beesha ciise weyne halkaasi isku farsaarayaan haddaba dhaqdhaqaaqyo ceenkee ah ay diyaaradda dalka Djibouti ay ka wada maxaa kalifay in ay xadkaasi soo gasho waan ku hayaa iyadana faahfaahinteed halkan ayaad ku daawan doontaan sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh halkan ku daawan doontaan duurnimadana maanta waxaa kamid ah ciidamada la magac baxay maamulka badbaadada maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku wajahan inay la wareegaan gudaha magaalada Baydhabo xilli ay markaasi qayb kamid ah magaalada banaankeedana ay ku sugan yihiin ciidamo tiro badan dhowr jiha ayaana markaasi ay ka soo galayaan xilli lafta gareen uu hadda xildhibaanada uu maanta dhaariyay kadib doorashada uu markaasi uu sheegay in dhawaan ay dhici doonto qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ayaan saaxiibayaal halkan idinkugu markaasi soo gudbin doonaa anigu soo waxaan ahay Cabdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii ay taa markuu ugu horeysay fadlan kanalkan rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysidna like garay siin share garay oo saaxiibadaada la wadaag mahadsanid daawade soo dhawaada hagaag aynu ku bilaawno wararka kuwooda ugu dambeeyay ee degdega ah ee haddana soo gaarayana haddii aan ku bilaabana meedadka 16 askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka beelaha Gudubursi iyo Samaroon isku dhinaca ayaa maanta lagu aasay gudaha magaalada Boorame kadib dagaalkii ka dhacay sheedeer iyo Samatar Yare iyadoona khasaarooyin xoog leh la gaarsiiyay maleeshiyaadka halkaasi ku dhumaalaysanayay ciidamada geesiyaasha beesha ciise weyne ayaana weerarka marka hore qaaday iyagoona ka soo kactamay Samatar Yare ilaa ay markaasi sheedeer ay ka gaareen gacan ku heenta sheedeer hadda waxa markaasi gacanta ku hayaan ciidamada geesiyaasha beesha ciise weyne iyagoona wacad ku maray in ay sii durgin doonaan ilaa ay markaasi meelo kale waaweyn ay kala wareegaan xaaladda sheedeer hadda waa mid kacsan iyadoona dhaqdhaqaaqyo ciidan markaa laga dareemayo dhinacyada kala duwan ayaana markaan wadaan sidii ay cid kale ay isaga dhicin lahayd balse laakiin hadda xaaladdu waxa ay markaasi maraysaa mid tii ugu xumeed xilli halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay ay wadaan labada beelood ee halkaasi isku hayaan balse meedad tiro badan ayaa laga soo qaaday sheedeer iyagoona la soo gaarsiiyay gudaha magaalada Boorame tirada rasmiga hadda la hayo waa 16 askari oo ka tirsan maleeshiyaadka beelaha Gudubursi ayaa lagu aasay magaalada Boorame taasina waxa ay ku tusaysaa xaaladda iyo waliba sidoo kale murugada ay ku dhex jiraan beelaha Gudubursi meedadka 16 askari oo ka tirsan beesha Samaroon ayaana lagu aasay magaalada Boorame iyadoona aaska ay ka dhacay waa aaska uu markaasi uu ku dhacay si jawi murugo leh iyagoona ay markaasi ku qaylanayaan mas'uuliyiinta odayaasha dadka dhaqanka inay aad uga xun yihiin waxa ay markaasi ciidamadoodii lagu sameeyay tani waxa ay markaasi ka dhigan tahay in ay ciidamadan ay markaasi la gaarsiiyay jabtii ugu xoog badneed aaskan waxa ka qayb galay mas'uuliyiin kala duwan odayaasha dhaqanka boqolaal shacab ah ayaana ka qayb galay dadka deegaanka ayaana si weyn ugu hadlay khasaaraha ka dhashay dagaalkii ugu dambeeyay ee sheedeer ka dhacay tani waxa ay fafaalo wanaagsan ay u tahay ciidamada geesiyaasha beesha ciise oo ay iyagu shaqadii loo igmaday ay sidaasi ay kaga soo baxeen xaaladda sheedeer waa ay kacsan tahay meedadka la geeyay magaalada Boorame waxa ay markaasi tusaale u tahay in ciidamada kale ee iyagana bari ku soo wajahan in ay soo galaan sheedeer iyo Samatar Yare ay naqan doonto in deegaanadaasi oo idin laga safeen doono ciidamada geesiyaasha beesha ciise hadda waxa ay diyaar u yihiin sidii ay ugu sii tilaabi lahaayeen deegaano kale iyo waliba sidoo kale meelo kale hor leh odayaasha dhaqanka beelaha Gudubursi ayaana markaasi iyagoo ilinta cishan la ay markaasi ciidamadoodii ay ku dhiirigeliyeen in dagaalka ay ku laabtaan
sidoo kalena ay iska dhiciyaan ciidamada beesha ciise weyne balse laakiin awoodda taagan waa beesha ciise iyagoona halkaasi ay si maaragtay gambasho leh ay ciidamadu ay hadda gacanta ku hayaan sheedheer weliba sidoo kale samataryaraba iyaga ayaa hadda beesha ciise gacanta ku hayeen muuqaalo kooban ayaa baraha bulshada si weyn loogu falanqeynayay balse laakiin waa inta aan dhicin dagaalka ka hor oo ay ku sugnaayeen ciidamada beelaha Gadabursi balse laakiin hadda gacan ku haynta sheedheer iyo samatarba waa ciidamada geesiyaasha beesha ciise wixii wararkaasi ku soo kordhana saaxiib yaal barnaamijyadeena dambe iyo weliba sidoo kale waxaan idinkula wadaagi doonaa barteena YouTube-ka ee subscribe dhaho dhanka kalena haddii aan fiiriyona diyaaradaha dagaalka ee dowladda Djibouti ayaa lagu arkayay xadka Awdal iyo Siril taasoo cabsi badan ee ku abuurtay dadka iyo weliba sidoo kale dadka shacbiga ee halkaasi ku nool iyagoona cabsi badan ay ka muujiyeen kadib markii diyaarada nooca dagaalka aan horay wali ay u arkeen dadka deegaanka ay ku arkayeen hawada sare ay dulheebaabayso Awdal iyo Siril balse dadka ayaaba durba bilaabay inay gabi ahaanba ay iska barneeyaan balse laakiin diyaaradahan ayaana ujeedkooda ugu weyn ay tahay sahmiintan weliba sidoo kale haddii ay ciidamada Somaliland ay dagaalkan ku soo biiri karaan iyagoona ay doonayaan haddii tallaabo ay dhanka samaroonka waa markaasi dhanka Somaliland ay u soo qaado beesha ciise ay noqon doonto in awaaqib xumo ay kala kulanto sheekada waxay noqon doontaa maamulka Somaliland weliba sidoo kale dowladda Djibouti hadda si xaaladda Awdal iyo Siril waa mid degan inkastoo ay markaasi ay ka taagan yihiin xaalado iska yarar ah haddana ciidamada Somaliland ayaanu markaasi ka fikiraya inay dagaalkan qaybtooda ay ka qaataan iyo inay ka haraan balse laakiin ciidamada beesha waa ciidamada diyaaradaha dagaalka ee dowladda Djibouti markii lagu arkayna waxa ay markan isugu laabteen dib in ay dagaalkan gali karaan iyo inay markaasi aysan gali karin wararka ayaa sidoo kale sheegayaan in diyaaradaha dagaalkan ee ka yimid dalka Djibouti ay soo galeen xadka gobolka Awdal kuwaasoo la arkayay iyagoo markaasi dul heebaabaya deegaano dhowr ah markaasi ila wareedya oo xilkasa ayaa tilmaamaya in tani ay qayb ka tahay dhaqdhaqaaqyada markaasi military ee cusub inkastoo aanan weli si rasmi ah loo shaacin sababaha kale ee dheeriga ah ay halkaasi ku imaan karaan xaaladda hadda gobolka Awdal waxa ay sii wajihi kartaa mid cabsi badan maxaa yeelay markii laga arkay diyaaradahan dagaalka ee dowladda Djibouti waxa ay markaasi dadka deegaanka ay bilaaweenba inay baraka xoogan ay sameeyaan maadaama aysan u adkeysan karin duqeymaha diyaaradaha ee markaasi loo adeegsanayo ciidamada Somaliland waa haddii ay dagaalka ku soo biiraan iyo beelaha Gadabursi iyo Samaroon oo isku dhinaca dhanka kalena haddii aan fiiriyana maamulka Koonfur Galbeed wararka ka imaanaya maamulka Koonfur Galbeed haddii aan fiiriyana ciidamada badbaadada maamulka Koonfur Galbeed ayaa ku dhawaaqay in ay la wareegi doonaan gudaha magaalada Baydhabo iyagoona ay halkaasi banaanka magaalada ay ku sugan yihiin ciidamada geesiyaasha waa markaasi ciidamada la magac baxay badbaadada maamulka Koonfur Galbeed ayaa hadda ku sugan banaanka magaalada halka la yiraahdo warta Abusharow ayay markaasi ku sugan yihiin ciidamadan sidoo kalena dhanka kale deegaanka Daynunay ayaynu markaasi ay ku sugan yihiin marka loo fiiriyo iyagoona ay doonayaan inay halkaasi ay ka galaan ciidamada la magac baxay badbaadada maamulka Koonfur Galbeed ayaa doonaya in magaalada Baydhabo ay la wareegaan xilli saakay ay gudaha magaaladaasi ay ka dhacday munaasabada dhaarinta xildhibaanada markaasi soo dooranaya madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftagareen ayay u badan tahay inuu mar kale dib ugu soo laabto maadaama doorashadu aysan ahayn doorasho loo dhan yahay ay dowladdu dhexe ay dagaal uu kala dhaxeeyo Laftagareen isagana durbaba uu bilaabay in doorashada uu qabto hadda se magaaladu jawigeedu iska degan yahay oo waxa markaas socdo ganacsigii iyo waliba sidoo kale qof walba nolol maalmeedkiisa ayuu raadsanay balse laakiin cabsida ugu badan waa dadka markaasi indhaha ku haya arrimaha maamulka Koonfur Galbeed balse ciidamo tiro badan ayaa la geeyay degmada Buurhakabe iyagoon halkaasi kasii kactamaya ee gaaraya gudaha magaalada Baydhabo balse laakiin xaaladaasi oo idil waxa ay markaasi ku jiraan kuwa aanan loo dhameen walow ay markaasi muuqaalo iyo warar kale ay sheegayaanba in ay magaalada ay ku sii dhawaanayaan haddii aan fiiriyo dhanka kale ciidamada isku markaasi magacaabay badbaadada maamulka Koonfur Galbeed ayaa la sheegayaa in ay si xoog leh ugu sii siqayaan magaalada Baydhabo iyagoona markaasi ay ku sii fidayaan
deegaano dhowr ah oo ay markaasi ku yaalaan duleedka magaalada. wararka hordhac ah waxa ay markaasi sheegayaan in ay qabsadeen fariisimo markaasi muhiim u ah isla markaasna ay cadaadis saarayaan ciidamada kale ee halkaasi ku sugan. warar kalena haddii aan sii raaciyona dhaqdhaqaaqyada ciidan ee ka socda awdal iyo weliba sidoo kale baydhabo ayaa sare u qaadaya walaac amni oo guud ahaan dalka ah. wararka ayaana war aan la xaqiijinin ayaa sheegaya in markaasi gurmad ciidan oo ay gaareen furimaha hore ee dagaalka. waa markaasi isgaarsiinta qaar ka mid ah deegaanada ayaana gebi ahaanba jaran oo aan laga helin xogo kale oo dheeri ah oo ay markaasi naqatay in ay xogaha qaar aan helaynona ay noqdaan kuwaan halkan idin la wadaagno. beesha caalamka iyo hay-adaha samafalka ayaana markaasi laga yaabaa in arrintan soo farageliyaan oo wax badan ay uga hadlaan arrimaha hadda socda ee taagan. daawadi haddii aad halkan nala soo gaarto xataa qof walba wanaagsan waxaan si naxariis leh kaaga codsanaya inaad kanalkan soo subscribe gelisid, muuqaalkan la garaysiin, share garaysa saxibada la wadaag oo ku mahadsantiid daawashada muuqaalka masaladii.